maalintii shalay ayaa xisbiga haya talada gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu doortay madaxweyne cusub oo ah mustafe maxamed cumar. maalinta britana waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu la kulmo madaxda ismaamulka soomaalida etoobiya iyo hogaamiyaasha dhaqanka. arrimahan ayaan haddaba waxaan ka waraystay khadar cabdi ismaaciil oo ah madaxii hore ee xarunta dhexe ee xisbiga haatanna ah xildhibaan deegaanka soomaalida ah. aad baad umahadsan tahay. shir shalay galab ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ayaa waxaa la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay isbedelka guud ee dalka ka jira in laga mid noqdo, islamarkaana loo baahan yahay madaxweyne cusub kadib shirar muddo 3 toddobaad ee ugu dambeysay uu ku jiray xisbigu iyo xubnaha xisbiguba falanqeyno badan iyo qorshayaal badan ayaa shalay ugu dambeyntii shir ay guddiga fulinta ee xisbigu yeesheen lagu doortay madaxweyne cusub kaasoo loo doortay mudane mustafe maxamed cumar. mudane mustafe maxamed cumar oo ahaa xubin hore oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida, xubnihii ugu horeeyey ee xisbigana la dhihi karo, mas-uuliyado kala duwanna kasoo qabtay deegaanka, ayaa shalayto xisbigu ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha cusub ee deegaanka. mudane mustafe marka deegaanka xilalka uu kasoo qabtay waxaa kamid ahaa, wuxuu soo maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, sidoo kale macadka tababarada macalimiinta oo uu maareeye kasoo ahaa, sidoo kale sanduuqii dhaqaalaha oo uu soo maray. marka shalayto guddigu fulintu waxay go-aan cad ku gaadheen inuu noqdo mustafe madaxweynaha deegaanka. wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in beritole loo ballansan yahay shir ballaaran oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu kala qaybgelayo dadka soomaalida ah. faahfaahin ma naga siin kartaa shirkaas? walaale, shirkaas waxa weeyaan sida loo ogsoon yahay deegaanku muddooyinkii ugu dambeysay wuxuu iskaga jiray crisis oo waata kalifay in golihii dhexe xisbigu intuu adsaabo muddooyinkii ugu dambeysay ama 3 toddobaad ee ugu dambeysay inuu shirar ku galo caasimada dalka ee absaaba. marka taasi waxa ay noqotay in qorshayaashii, dhibaatooyinkii iyo mustaqbalka deegaanka iyo mustaqbalka xisbiga laftiisa uu halis u galo. taasi marka shirarkii muddooyinkaa soo socday iyo qorshayaashii ka soo baxay xisbiga iyo guud ahaan sistamka cusub ama madaxweynaha cusub ee la dhisay, si markaa dadkii, xukuumaddii, odayaashii, aqoon-yahankii, waxgaradkii deegaanka oo dhan oo dad lagu qiyaasayo 2,000 oo ruux inuu beritoole marka uu ra-iisul wasaaruhu uu la kulmi doono, isla markaana warbixin iyo mustaqbalka deegaanka iyo ka dalkaba uu siin doono. taas weeyaan, kabacdina sidaa lagu noqon doono. goormaa lagu wadaa in xisbiga iyo madaxweynaha cusubba ay ku noqdaan gobolka? waxaan rajaynaynaa berri wixii ka dambeeya kolley waxaa loo diyaar garoobi doonaa sidii loo noqon lahaa proceduradii kale xisbiga qorshayaashii kasoo dhex baxay shirarkiisii iyo kulamadiisii loo sii hirgelin lahaa. marka waxay ka dhigan tahay berri wixii ka dambeeya ilaa axadda ilaa isniinta kolley saabkii loo bixi lahaa deegaankii loogu noqon lahaa ayay noqonaysaa hadii ilaahay. sidan ka warqabno isbedeladan siyaasadeed ee ka dhacay gobolka soomaalida etoobiya waxaa ka dhashay xiisado iyo colaad. marka colaadaasi maxaa idinka qorshaysan? sidee baad rabtaan inaad u damisaan? xiisadaha iyo colaadaha insha allah waxa ay noqon doontaa kuwa qorshayaasha cusub ee xisbigu ku hawlgeli doono iyo madaxweynaha cusub si cad ugu yaala weeyaan. wax laga qabtayna way jiraan, in yaroo dhimana haddii ilaahay yidhaaho waxay noqon doontaa kuwa uu dhamaystiri doono madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisu haddii ilaahay yidhaaho iyo xisbiguba. marka waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho rajo fiican ayaa jirta, mustaqbal fiican ayaa jira, waxaana dhammaan shacabka iyo bulshaduba ay aaminsan tahay madaxweynahan daada yar oo ah nin waxbartay, aqoon-yahan ah, islamarkaana rajadii deegaankan halka ay taagneed kasii horumarin kara inuu yahay. marka taa waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho mustaqbalka dhow in ay noqon doonaan mid midho laga dhaliyo. ugu dambeyntii su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay, muxuu noqon doonaa mustaqbalka madaxweynihii hore iyo maamulkii hore maamulka soomaalida etoobiya? madaxweynihii hore hadda xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad fiican, sidii aan horeyba
idaacadda v o a aan uga sheegnay wax dhiba ma qabo waxyaalaha dhimana haddii ilaahay idhaaho waxay noqon doontaa wax ay xukuumadda cusub iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo xukuumadda federaalka laftigeedu ay si dhaqsa ay u dhamayn doonaan si askaradana ku dhamaan doona ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay idhaaho inay noqoto wixii dhacay wuu dhacay waxaa wanaag ah waxa dambe in wanaag lagu dhamaystiro taana haddii ilaahay idhaaho midaan kulligeen ka wada shaqeyn ayay noqon doontaa. kaasi wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan.